Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Somali Technology News oo aan u bedelnay Gosol Production. Sawaha aan u bedelnay fiidiyooyin ka horeeyay ayaan xusnay inaan fiidiyo kaga hadli doono insha Allah. Fiidiyogan ayaan insha Allah ku xusi doonaa waxyaabihii aan u bedelnay sababihii aan u bedelnay Somali Technology News oo aan Gosol Production u bedelnay. Si kana kooban kadib ayaan soo noqon doonaa la socod wanaagsan. markale kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Somali Technology News oo aan Gosol Production u bedelnay sababta koowaad ee nagu dhalisay inaan u bedelno Gosol Production channelkii hore wuxuu ka koobnaa magaciisa sida aad ka dareemayseen Somali Technology News wararkii iyo tiknoolajiyada casharada ahaa inaan ku soo gudbino balse channelka waxaan rabnay inaan ka dhigno channel official oo wax walba u banaan haddii aan lahayn waraysiyo gaar ah dadka la yeelano haddii aan lahayn barnaamijyo kale oo dadka faa'iido leh oo kuwaasi ka duwan inaan ku soo gudbino dadka hibada u leh inay dadka ka qosliyaan anagoo muuqaal ka soo duubayno sababta koowaad ee nagu dhalisay waa arintaas sababta xigta ee nagu dhalisay waxa weeye waxaa jira waxyaabo badan oo ka duwan oo aan rabno inaan dadka u soo gudbino ay ka mid yihiin waanooyin iyo talooyin ku aadan dadka barta computer science-ka ama waliba teknolojiyada iyo waxyaabahaasi iyo wixii la mid ah sababtaas ayaa nagu dhalisay marka inaan channelka ka bedelno magaca oo aan Gosol Production sidaa daraadeed magacaas ayaan jeclaystay inaan u bedelo si channelka uu noqdo channel official oo wax walba u banaan sidaa daraadeed ayaan nagu dhalisay fiidiyogan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan kaga hadlayay sababihii aan u bedelay channelka Somali Technology News oo aan ugu bedelay Gosol Production intaan fiidiyogan fiidiyo la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iga macnaha